بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تعالى في محكم تنزيله وهو أصدق القائلين: قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره. إلهي سبحانه وتعالى مر الله markuuna khalqay adduunkanna la keenay wuxuu noo tilmaamay xikmadda weyn ee adduunkana loo keenay. marka hore wuxuu ilaahay wax nooga sheegay waxaana loo khalqay adduunkana loo keenay maxay ahayd. intaa kadib ilaahay wuxuu tilmaamay qof walba oo nolol dhadhamiyey inuu geeri dhadhamin doono. geeridaa ka gadaal umuuro cajiib badan ayaa jira oo ka mid ah umuuraha qaybka ah inaan rumaynana ay waajib tahay. sidaa darteed baa ilaahay asagoo tilmaamaya wuxuu yidhi insaanka nacalada ha ku dhacdo waa midka kaafirka ah, waa midkaan ilaahay rumaysnayn, waa midkaan ilaahay ogoleen. qutila alinsaanu maa akfarah, maxaa kufri banaysiiyey? waa la khalqay, rabbi ayaa adduunka keenay, wuxuu u baahnaa oo dhan baa loo dhammaystiraye amarka alle muxuu u qaadan waayey? qutila alinsaanu maa akfarah min ayi shayin khalaqah, maxaa laga abuuray? insaanku ha kufriyo, rabbi ha diidee ma og yahay marka hore waxa laga abuuray? min ayi shayin khalaqa, maxaa nala ka khalqay? war qof walbow gadaal isku fiiri, war qof walbow naftaada gadaal u raac, khaasatan dadka amarka alla diidan, daacada alla inay qaataan aan ogolayn, salaadaha inay tukadaan lagu kari la'yahay, rabbigiin caabuda lagu kari la'yahayow gadaal isku fiiri. min ayi shayin khalaqa, maxaad ka abuuran tahay marka hore? maxaa rabbi kaa khalqay subxaanahu wa tacaala? maxaa ilaahay subxaanahu wa tacaala kaa abuuray? min nutfa, candhuuf buu dhaha ilah subxaanahu wa tacaala. candhuuf ayaa laga khalqay, nutfa laga abuuray, dhibic biyaa ayuu ka khalqan yahay buu yidhi ilah subxaanahu wa tacaala. min nutfatin khalaqahu faqadara, waa candhuuf biyo ah, waa biyo mani ah. maradu meel allaala meeshay gaarto qofku awood uma laha inuu bannaanka ku soo baxo, inuu akhyaar ku qaabilo, inuu aroos ku aado, waayo waa xishoonayaa, ma awoodi kara inuu ku soo baxo. waxaasaa nala ka khalqay, arrintaasaan ka abuurannahay. qofka kibraayow iska jir, war qofka ilaahay amarkiisa diidayow iska ilaali, war qofka rabbi amarkiisa aan ogolaynoo wax badan gadaal isugu laabo. qofka muslimka ah khaasatan ceeb naftaadaa kuugu filan, laan janna waxaa iskale buu yidhi nebiga qofka ceebihiisa kaga mashquula ceebaha dadka ceebahooda ha raaraadin, adaa ceeb badani. war qofka ceebtiisa daa, adaa ceeb la ahe. war qofka dadka ceebihiisa raacraaca dhib badan buu ku jiraa. waxaa nala ka abuuray nutfa, waa dhibic biyo ah. min nutfatin khalaqahu faqadara ثم السبيل يسرا, waa sidka adduunka ku nimid, waa waddadii adduunka aan ku nimid. intaa kadib ilaahay wuxuu u fududeeyey insaanka waddaduu soo mari lahaa. ثuma sabiila yasara, mufasiriinta badan waxay yidhaahdaan jidkaa waxaa loola jeedaa waa dariiqa wilaadada. canuga markuu dhalanayo, maxalka uu soo maray hooyadii ee adduunka uu ku imaanayo, rabbi baa fududeeyey subxaanahu wa tacaala. umlisa bannaanka iska taaganta, ninka dhakhtarkaa bannaankuu taagan yahay, wixii soo baxuu qabtaa, laakiin yaa yasiray, yaa fududeeyey, yaa sahlay madaxaagoo intaa ah, intaasoo kiilo ah
inaad soo marta maxal aysan macquul ahayn ilaa ilaahay iimaankiisa in la rumeeyo maahane inuu qof bani aadama soo maro uma asabiila yasara ilaah yaa fududeeye subxaana wa tacaala mar labaad markuu soo maro ku noqo haddii la yidhaahdo ma awoodi karo waayo ma awoodi kara insaanka iyo maxalka uu ka soo baxay meel isleh ma aha ilaahay ayaa saqiray oo fududeeyey uma asabiila yasara uma amaatahu faaqbarah intaa kadib waa dhimanaya buu dha ilaah subxaana wa tacaala kadibna waa la qabriyeynaa qabrigaa la gelinayaa dhulkaa lagu aasayaa ciidaa lagu duugayaa mawduuceena caawa wuxuu noqonayaa maadaa bacda almowt maxaa ka dambeeya intaa waa aragnay qof dhimanaya waa aragnay qof adduunka ka sii socda waa aragnay qof dhalanaya waan aragnay amaa geeri ka gadaal maxaa ahaaday walaalayaal waa wax la raba in loo isticdaado waa arrinta la raba in loo diyaar garoobo waa waxaan rabna mawduuc yar inaan caawa iska xasuusino iskana tilmaanno way qafladii baa badatay qof walba adduun buu gadaal u fikiraa qof walba xoolo suu ku heli lahaa buu gadaal u fikiraa xaaraan waa lagu raadiyey xalaal waa lagu raadiyey xoog waa lagu raadiyey xeelad waa lagu raadiyey waxna lama haayo wax gacan lagu haayaaye ma jirto balse haddaan ka soo leexano wax yar dhanka adduunka bal aan fiirina caawo waxa u baahan inuu qofka gadaal u fiiriyo waa maadaa bacda almowt god baa la gelaa maxaad horumarsatay ilaahay baa agtiisa aadaysaa maxaad la hortegaysaa janno iyo naar baa jirtee tee diyaarsatay waddadeed qaaday matii jannada mase waa tii naarta walaalayaal qabriga iyo waxa ka sii dambeeya waa umuuraha qaybka ah ee diinta nooga warantay annagu ma arkin laakiin inaan rumaynaa waajib ah dadka iimaanka leh tilmaamaha rabbi uu ku tilmaamay waxa ugu waaweyn aladiina yu'minuuna bilghayb qayb bay rumeeyaan war qof rumeeyey wax uusan arkin ilaahay ka warramay rasuulkuna ay sheegeen wixii allah iyo rasuul ay sheegeen uu arkay waa min baabi awlaa saa darteed buu ilaah yidhi alif laam miim dalika alkitaabu laa rayba fiihi hudan lilmuttaqiin aladiina yu'minuuna bilghayb waa tilmaanta ugu horaysa qayb bay rumaysan yihiin waxaysan arkin oo rabbi sheegay rumeeyeen waxaysan arkin oo rasuul sheegay rumeeyeen saa darteed baa qofka iimaanka leh wuxuu iimaan ku yeeshay mu'minna loogu tilmaamay wuxuusan arkin ee uusan maqlin oo ilaah subxaanahu wa tacaala kitaabkiisa uu ku xusay taasuu markaa rumeeyey qofka noocaas ahna alla agtiisa waa u dhow yahay subxaanahu wa tacaala qofka noocaasa alla agtiisa qiimuu ku leeyahay nebigaa maalin ooyey sala allahu calayhi wasalam wallaahi waxaan jeclaysan lahaa buu yidhi inaan walaalahay arko walaalahay inaan arki lahaa baan jeclaan lahaa saxaabadii baa waxay dhanaa walastikhwaana walaalaha manihin miya annagu walaalaha manihin miya rasuulkii ilaahayow idinka asxaabtaydii baa tihin buu yidhi nebiga sala allahu calayh wasalam laakiin walaalahay waa kuwa gadaal ka imaan doona oo aan i arkin oo intay maqleen xadiid iyo aayad ama ay aayad ilaahay maqleen saa igu rumeeyey ayagoon weligoodii arkin annagoon weligeen arkin nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam annagoon rabbigeen arkin oo yakhshawna bilghayb aan nahayo uga cabsanayna hayb dadka noocaas ah ayuu tamaniyey rasuulku inuu arko walaalayaal waana tamaninayaa rasuulka wuxuu oynayaa inuuna arko saan nahay haddii la ogaan lahaa saan nahay hadday xaqiiqdu bannaanku ahaan lahayd nama tamaniyeen sunnadiisaan ku ciyaarnay diintaan ka leexanay salaadaan ka tagnay sunnadiisaan noolayn weynay ummadda waxaan ugu necabnahay waxa diinna xasuusiya ummad noocaas ummad loo ooyo ma aha war sharafta aan naloo yeelay aan ka soo baxno war sharafta nebiga noo yeelay aan ixtiraamno war sharafta nebiga noo sameeyey aan kor u qaadno sala allahu calayhi wasalam sidaa darteed buu yidhi qof kasta ama axad kastoo ayaga ka mid ah wuxuu yeelanayaa 50 nin oo idinka mid ah ajirkooda buu dhahay nebiga sala allahu calayhi wasalam saxaabadu waxay dheen ma annagaa mase ayaga 50 nin oo annaga naga mid ahaa mase waa 50 nin oo ayaga markaa ka mid ah idinka mida buu dhahay nebiga sala allahu calayhi wasalam sababtu maxay tahay walaalayaal sababtu waxay tahay waxay ku dhex nool yihiin oo ay ku dhex noolaanayaan
zaman aad iyo aad u fidno badan waxay ku dhex rumaynayaan ilaahay ayagoo la cadaadinayo la dhibayo rasuul ma dhex joogo idinka nebi baa idin dhex jooga wax idinku saacidaya diinta idin haysataa qalad yar hadduu dhaco waxyi baa cirka ka soo degaaya qaladkii la galaa la saxayaa laakiin ayagu waxay ku nool yihiin meel aan saas ahayn balse iska daa annagu waxaan ku noolnahay meel ay xumaantu nagu saacidayso technology baa lagu magacaabaa mobile baa jira fisqiyaal baa jira ayagu ma lahaan jirin xilligooda sariirtaada adigoo jiifaad maanta macaasi gelaysa adigoo baabuurkaaga saaran baa dembi macaasi ku jirta ummad noocaas ah waaye nebi moxamed waa u ooyey sala allahu calayhi wasalam walaalayaal waa la dhimanayaa adduunkan geedi baa laga yahay waa la guurayaa oo daartaa waa la guurayaa oo daar aakhira loo socda waa inaan ogaano oo aan fiirino maxaa noo dambeeya maxaanse heli doonnaa geerida ka gadaal markay dhacdo ilaahay markuu yidhi uma asabiila yassara wuxuu ku daray uma amaatahu fa aqbarah insaanku waa la dilayaa oo wuu dhimanayaa oo ilaahay baa dilaaya intaa ka bacdina qabrigaa la gelina meeshii iftiinka uu ku jiray mugdi baa ka dambeeya meeshii sariirta ficneed uu seexan jiray duud iyo tixri iyo aboor baa la kor seexanaya barkintii loofka iyo catarka loo marin jiray ciid iyo dhoobaa u dambaysa dhinacii la siyari jiray sariirtii moodalka ficneyd ciiddaa la dhigaa waxaasoo dhan qofka mu'minka inuu xusuusto waaye qofka iimaanka leh waa inuu arrintaa dareema qofka rabbi aaminsan waa inuu arrintaa ogaadaa haddii aad ku fakartay in maanta adduunka aad joogto aad ku waari doonto ma jirto haddaad istiri wax dhiba kama dambeeyaa ma jiro waylun likulli humazatin lumaza alladii jamaca maalan wacaddada yaxsabu anna maalahu akhlada halaag wuxuu u sugnaaday waadi jahannam wuxuu u sugnaaday mid kastoo wax xanta ummaddana ceebeeya muslimiintay ka baxsan la'yihiin bani aadamka ammaan siin waaya waylun likulli humazatin lumaza yaa waaye alladii jamaca maalan wacaddada tilmaanta koowaadba waa ku sifownay tilmaanta ugu horaysaba tilmaantii la tilmaamay dadka halaagga gelaya in badan oo ka midan ku sifaysannahay ilaahay wuxuu yidhi jamaca maalan wacaddada yaxsabu anna maalahu akhlada ma wuxuu u malaynayaa xoolaha inay waarinayaan inay malakamood ka ilaalinayaan inay geeri ka difaacayaan inay qabri ka ilaalinayaan kallaa layunbadanna fi lxutama buu dha ilah subxaanahu wa tacaala ma jirta arrintaa ka ilaalin maayaan ka difaaci maayaan waxaanse ku tuuraynaa naar xutamo la yidhaahdo xutamo haddii macnaheeda gadaal loo sii raaco burburisaa la yidhaahdaa waa naar wax burburisa waa naar wax jejebisa waa naar wax baabi'isa kallaa layunbadanna fi lxutama ilaahay baa arrinteeda weyneeyey wamaa adraaka ma alxutama war maxaa ku ogeysiye xutama waxay tahay war xutama waxay tahay ma og tihiin rabbi baa noo sii tilmaamay naarullah waa naartii ilaahay waa naar muuqada ah waa naar la shiday waa naar la huriyey waa naar maalinba la huriyo sidaa darteed buu rasuulku dhihi jiray qoraxdu markay bartamaha cirka ku taagan tahay salaada joojiyaha tukanina waa jahannamaa la huriyaa jahannamaa la shidaa buu dhahay nebiga sala allahu calayh wasalam waida aljaxiimu sucirat si fiican baa loo hurinayaa qiyaamaha marka la tago waa la shidayaa naarullaahi almuuqadah waa naar ilaahay oo la huriyey waa naar ilaahay oo la shiday waa naar ilaahay oo aad loo sii shiday habeenkii israha iyo micraajka rasuulku wuxuu yidhi mar allaala markaan sii soconay ayaan u tagnay nin kariihadal mandar ah aan la dayi karin naar iyo dabba agtiisa yaalla wuu hurinayaa waana ku gaaf wareegayaa ma qoslo ma hadlo naxariis kama muuqato waa khilaadun shidaad laa yacsuuna allaha maa amarahum wayafcaluuna maa yu'maruun ninkii noocaasa markaan jibriil weydiiyey oo aan idhi waa kuma jibriilow waxaa laygu yidhi waa maalik waa kayd hayaha naarta waa midka naarta maamula waa midka naarta ilaaliya waa midka ahlu naarka loo xil saartay inuu cadaabka ku gubo saa darteed buu ilaah yidhi uma amaatahu kadib insaankii waa dhimanayaa geeridu waa shay aad iyo aad u xanuun badan oo naxdin leh jirkay howlgab ka dhigtaa wadnihii shaqaynayaa istaaga carabkii dhaqdhaqaaqayaa qalala
indhihii wax arkayaa kor aada, xibnihii baa kala qalala. nin sakaraaduu rasuulku u soo galay sala allahu calayh wasalam, Abu Salama la yidhahdoo dhimanaya. kadib indhaha ayuu u laabay rasuulka sala allahu calayh wasalam. wuxuu yidhi qofka markuu dhimanayo ruuxdu waxay indhuhu yatabacuhu lbasar, waxay raacaan nafsadda dhe. oo qofku mar allaala markuu dhimanayo waad aragtay indhuhu kor u taagaya, naftii baa baxday, naftii baa socotaa, saasuu u fiirinaya. kadibna nebiga indhahu u laabay sala allahu calayhi wasalam. xayaata buxu aad buu u dhib badan yahay. sakaraadka waa xanuun, sakaraadku waa dhib, sakaraadku waa murug, sakaraadku waa wax nebi maxamed ka ooyey sala allahu calayhi wasalam. maalin maalmaha ka mid ah, gabar asaga uu dhalay wiil ay dhasho sakaraad ah ayaa nebiga loogu wacay. aabbahay iigu wacay tiri, waa Zaynab. aabbahay iigu waca, canugeyga ixtidaarka galay, sakaraadkii geeridaa ku soo xaadiraye ha ii yimaada aabbahay. ninkiis adeega waday markuu rasuulku u tegay sala allahu calayhi wasalam wuxuu yidhi gabadha